السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhawaada qiso aad u la yaab badan oo ka dhacday magaalada Hargeysa qisadani waxay dhex martay wiil magaciisa lagu magacaabo Maxamed iyo gabadh magaceega lagu magacaabo Nimco qisadani waxay noqotay qisadii ugu la yaabka badnayd ee la yaabaan malaayiin kun iyo kumanaan kun oo ku nool koonkan aynu ku noolahay qisaduna waxay u dhigan tahay sida tan Maxamed waxa uu ku soo koray oo ku soo barbaaray xarunta agoomaha Nimcona waxay sidoo kale ku soo kortay oo ku soo barbaartay dalka Canada nolosheedu waxay salka ku haysay nolol raaxo leh si kastaba ha ahaatee Maxamed waxa uu soo galay suuqa waxa uuna ka helay fursad shaqo taasi oo ahayd inuu kirishbay noqdo haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa ay suuqa u soo dhaadhacday si ay ugu soo adeegato suuqa Nimco waxa ayna ka soo baxday kadib waxa ay timid xaruntii istaanada si ay u raacdo gaari xaafadoodii gaarsiiya nasiib wanaag waa ay heshay Maxamed ayaa arkay haddaba Nimco waxay ahayd gabadh Alle subxaanahu wa tacaala qurux u dhammaystiray markii ay indhahoodu isku dhaceen waxa uu ku yiri kursi kaliya ayaa bannaan ee soo dheeray inta ay kor iyo hoos u eegtay ayaa ay ku tiri waxay wiilkaagan uskaga badan leh aniga hayla hadlin noocaagaas oo kale lama hadlaan waa uu argagaxay waa uu fajacay oo waa uu yaabay kadib markii uu hadalkaasi ka soo yeedhay Nimco haddaba rakaabkii ayaa dhaqaaqay kama uu jeedsan indhahana kama uu leexin ilaa iyo intii lagu sii guda jiray socdaalka gaadhiga haddaba markii ay degtay waa ay soo rogaal celiyeen isaga iyo dirawalkii oo khaasa kadib markii ay soo dhigeen rakaabkii habeennimadkii ayaa gaadhay waqtigii uu seexanayay Maxamed habeenkani waa ay kala duwan tahay habeenadii hore hurdadii ayaa uu ka salalay mana uu seexan indhahana iskuma uu keenin waagii ayaa baryay waxa uu doonay shidaale si uu gaadhigu u dhaqaaqo haddaba Nimco ayaa ku soo laabatay isla istaankii waxa ay doonaysay gaadhi ay kiraysato waxa ay la kulantay dirawalkii waxa ay ku tiri aniga iyo qoyskaygu bari toole fisid ayaanu baxaynaa oo booqasho ayaanu u tagaynaa magaalo madaxda gobolka Burco haddaba markii ay sidaasi dhacday nasiib darro waa uu ka maqnaa Maxamed oo shidaal ayaa uu gaadhiga u doonay dirawalkii ayaa u sheegay oo ku yidhi beri toole waxa aynu aadaynaa gobolka Burco waayahay ayaa uu yidhi gurigii ayaa loogu tegay Nimco markii uu Nimco arkay Maxamed waa uu yaabay oo waa uu fajacay waxaanu isidhi gabadhii aad dareenka jacayl u qaaday waa ay kugu soo rogaal celisay oo waa ay kugu soo laabatay waa la israacay waxaana la tegay gobolkii ay doonayeen haddaba halkaasi waxa ay u tagayeen dalxiis sidoo kale aroos ka jiray oo ay wax isku hayeen ayaa ay u tagayeen waxa la gaadhay waqtigii arooska la jaajadiyay waa uu ka baxay oo dibadda ayaa uu tagay waxa ka daba tagtay isla Nimco waxayna ku tiri maxaa kugu dhacay ee dadka ka dhex saaray waxa uu ku yidhi aniga oo sidana anigu dadka waan ka duwanahay waanu iska hoosaysiinayay dadka waa ay yaabtay waxay ku tiri adigu dadka boqolkiiba boqol waa aad la siman tahay gacanta ayaa ay soo qabatay waa ay la jaastay kadib waa is wareysteen iyagoo xogo dhinacyo badan taabanaya iska wareystay kadib waxa lagu soo celiyay isla gurigoodii fiirsadu kula hadla kuma uu helin mar dambe waxa uu iska yimid istaankiisii kadib Nimco ayaa waagi markii uu baryay ugu timid istaankii nasiib darro waa ay weyday aroor labaadkii sidoo kale waa ay u timid waa ay weyday aroor saddexaadkii sidoo kale waa ay u timid nasiib wanaag waa ay heshay waxa ay ku tiri maxaa kugu dhacay laba arooriyood ayaan halkan isla goobta yimid waxa uu yidhi nin shaqaysanaya ayaan ahay oo xogsanaya isla markaana cunto daruurigiisa la soo baxaya oo meelo badan ayaan u baxaa gobolada dhammaantoodba waxa ayna ku tiri waxaan kuugu yimid inaan kala hadlo arrin labadeena inaan huseeya waxa uu ku yidhi inta uu dhoola cadeeyay farxay maxaa uu yahay arrinku waxa ay ku tiri sida tan adigu xidhiidh hore miyaad u leedahay waxa uu ku yidhi malihi malan ahaan doono sababta oo ay tahay anigu marka koobaad malihi wax lacaga marka labaad waxaan ahay nin noloshiisu hoosayso haddaba waxa ay igu jawaabtay Nimco
adigu ma tihid nin noloshiisu hoosayso waxaad tahay nin ay noloshiisu sarrayso waxaad daabtaa oo aad dhaantaa oo hankaagu ka sarreeya dad badan oo aniga Yurub igala noolaa gaar ahaan dalka Canada oo qaadan jiray waxa loo yaqaano caydha oo aan shaqaysan jirin balse adigu muruqaaga ayaad kala soo baxaysaa isla cunto daruurigaaga adiga wax xidhiidha mayla samayn kartaa maya ayaa uu ku yidhi hadal iyo dhammaan waxa ay ku tidhi anigu adiga waan ku jecelahay maxamed aad ayaa uu jeclay laakiin waa uu soo bandhigi kari waayay isagoo isyaasaya waxa ay ku tidhi xaqiiqada ii sheeg anigu waan dhaqaaqayaa waxa uu ku yidhi anigu waan ku jecelahay isla jacaylkaad adiguna ii soo bandhigtay waan ka aqbalay waxa ay ku tidhi anigu waan noqonayaa oo dalka Canada ayaa ku noqonaya oo waan rogaal celinayaa labadeena waan iskursanaynaa adiga sideed u aragtaa waxa uu ku yidhi waa sax waxa ay ku tidhi maanta laga bilaabo nolosha kirishbaynimo sidaas ayaad kaga baxday nolol dhaantana waad helaysaa ina mari gacmaha ayaa ay soo qabsadeen oo waa uu soo raacay markii cabbaar in yar gurigoodii loo jiro waxa ay ku tidhi isug si dhaqso ah ayaan kuugu soo baxayaa si aan arrinka ula soo socodsiiyo isla qoyskayaga haddaba daawadayaal iminkii haatana waxaad qaybta labaad si aad ula socoto channelka magaciisa loo yaqaano Hobaal Media markasta iyo goor kasta ha moogaanin qaybta labaad waxaad kala socon kartaa channelkan Hobaal Media haddii uu channelka ku raali geliyo ama hore aanad u arag ama hore aanad la socod jirin ama aad ku cusub tahay subscribe dheh like share gare khalqada xigta waxaad kala socon doontaa isla channelkan Hobaal Media waxay idin daadiinayay maqaalkan anigoo ah Yaale Maxamed Aadan ayaa la Talyaani dhanka farsamada isku dabaridka soo qabanqaabinta Cabdicasiis Mataane intaynu ku kulmi doono maqaalka xiga waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh